sharci ma aha in aad xidhatid maaska marka aad joogto meelaha indoor-ka ah. Qof kastaba isagay jirtaa inuu ogaado wixii caafimaadkiisa saameynaya. Dad baa jira xanuuno kala qaba oo uu COVID-ku aad u saameynayo. Marka dadka waxa fiican inay xidhaan mask marka ay joogaan meelaha dadku ku badan yihiin, sida suuqyada, dhakhtarrada, marka ay adeeganayaan. Xanuunadaasi waxaa ka mid ah qof ka soo qaad qaba macaan, qof qaba wadne xanuun, qof maxay ahaydee xanuuno kale ay oo dheeraada oo haddii ku dhaco COVID-ka aad uga sii xanuunsanaya. Waxaa kaloo jirta dad da'doodu waaweyn tahay oo iyaguna aan adkaysan karin hadduu COVID-ku ku dhaco. Marka waxaa fiican haddii aad ka baqayso inuu xanuunkaaga halis u keenayo caafimaadkaaga, inuu COVID kugu dhaco, marka aad dabadda maraysid, meelaha buuqa aad joogto, inaad xidhatid mask. Laakiin sharci dowladeed ma aha, adiga uunbaa ah inaad ogaato wixii khuseynaya caafimaadkaaga iyo wixii daryeelaya caafimaadkaaga, maskana aad u xidhatid sidii aad u badbaadin lahayd caafimaadkaaga.